bon. Ok, bismillah, alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man walah. Wa salaamantihiin dhammaantiin meel kastoo dunida kaga sugan tahaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan joogaa meel dibad ah oo hawo ah, dhulkuna aad buu u diiran yahay amba u kulul yahay. waxa aan aad ugu faraxsanahay inaan nila kulmo ininka oo caafimaad qaba reer Jabuuti iyo ummadda geeska iyo bariga Afrika ku nool. waxaan jecelahay inaan 3 kelmadood maanta aan idhaahdo oo aad u kooban insha Allahu tabaaraka wa tacaala. salaadii maghrib baa fooda nagu soo haysa, marka insha Allah waan soo koobi doonaa hadduu Ilaahay dhahdo subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, waxaa warar naga soo gaadhaya magaalada Jabuuti. warar waxaa naga soo gaadhaya aan fiicnayn, gaar ahaan xadhigga Fu'aad oo aad u sii darnaanaya. waad ogtihiin dadkeenna 2 shay baan u sheegayaa. marka hore, waxaan nahay dad laablakac leh, caatifadoodu ay sara kacdo, qaarkiin wayaan inta badan maaha. kadibna waan ilownaa wixii dhacay. Fu'aad wuxuu inoo soo sawiray taswiir aad u foolxun, cabsi iyo argagax badan leh. wuxuu inoo soo sawiray isagoo ku xidhan musqul amba kaniif amba xamaam sida uu nibasadu u yaqaano. wuxuu inoo soo sawiray isagoo jidhkiisu bedilmay, uu qayyarmay, uu ku dhacay isbeddel iyo takhyiir laxaad leh uu ku dhacay buu inoo soo sawiray. Fu'aad waxa uu inoo soo sawiray isagoo dul fadhiya xamaam. dowladduna waxay isku dayday inay arrintaa beeniso. hay-adda caalamiga ee u dagaalanta xuquuqda bini'aadanka waxay soo saartay inay arrintaasi dowladdu isku dayday inaynan waxba ka jirin oo aynan ahayn arrin cadaalad iyo xaq ku fadhida. walaalayaal, meeshii Fu'aad waa laga beddelay, laakiin xaaladda Fu'aad wax isbeddela oo ku dhacay ma jirto. inantii deeqa iyadana la xidhay ee ciidamada ku ahayd, iyadana waxaa laga warramayaa inay xaaladdeedu aynan fiicnayn oo ubadkeega iyo xaaskeegii la kala fogeeyey. waxaad ogtihiin gabadh yar oo u dagaalantay inay dadku ay helaan koronto raqiisa oo magaceega la yidhaahdo Muna, in shaqadii laga eriyey oo looga eriyey maxaad ugu dagaalantay inaad tidhaahdid ha la dhimo korontada. waxaad ogtihiin walaalayaal, shaqaalihii Sharaton inay geedaha hoos fadhiyaan oo ay dhibaataysan yihiin, ay baryootamayaan. waxaad ogtihiin walaalayaal, walaalkeen Fu'aad inuu xanuunsan yahay oo dhibaato fara badan oo culus ay haysato. waxaad ogtihiin walaalayaal, xaaladdii ay ku dhimatay walaasheen Xabiibo Balbalaaf. waxaad ogtihiin walaalayaal, dadka reer Jabuuti dhammaantood inay ku sugan yihiin xabsi aad u adag oo daran oo u baahan in wax laga qabto. wax ka qabadkaasi kuma xidhno in ay dadka ay hadlaan oo quraate. waxay ku xidhan tahay akshinno aan qaadi doonno usbuucyada iyo bilaha inagu soo aadan. waxaa ballan inoo ahaa inaan inii sheego siyaasadda ina geella halka ay ku dhammaanayso iyo waxyaaladu codsi iyo siduu u dhaqdhaqaaqi doono 3 bilood ee soo socota. waana inii bilaabi doonaa. waxaan ku ballansanayn inaan amalka iyo rajadu ay tahay mid wanaagsan oo ah inay Jabuuti haddeeto ay tagayso hawo iyo jawi kale oo wanaagsan. arrintaasina
barnaamijyo badan baan ka qaban doonaa. waxaan inii sheegayaa walaalayaal ina geelle wuxuu inoo sheegay inuu samayn doono sidii maalin dhaweeta aan ka hadlay wax loo yaqaano fond souvenir baaratay inuu inoo samayn doono souverain fongan souverainga ah in aan nahay waddanka nafsul makaan iska raali noqda intaas uu khadka ka baxay. waxa ay leeyihiin waxa uu gaarayaa cadadka sukaanka amba tirada populationka reer Djibouti marka lagu qiyaaso boqolkiiba 22.5 waxa ay yihiin dad baahan oo fuqara ah. yaab weeyaan, waa cajiib ma ogtahay. marka annaku waxa aan garabnaalaa gobolkan Gaza la yiraahdo oo ay ku nool yihiin 1 milyan iyo badh dad ah oo reer Palestina. marka maadaama arrintu ay sidaa tahay waxaan dhahaynaa meesha noocaas ah ayuu fond souverain ayaan ka samaynayaa yidhi Ismaaciil Cumar Geele. ma rabo warkii maalintii hore aan ka warramay in aan wax ka idhaahdo. waxa weeyaan 3 arrimood buu ku celceliyaa Ismaaciil Cumar iyo dadka u shaqeeya. arrinta koobaad ee ku celceliyaan waxa weeye dalka ammaan baa ka jira, nabadgelyo ayaa ka jirta. waa been weeyaan. ammaanku maanta ammaanka marka laga sheegayo adduunka ammaanku wuxuu leeyahay 5 arrimood. qofka 5 arrimood haysta iyo ammaan haysta oo amni haysta. amniga ugu horeeya bini aadamku inay helaan waxa weeye waa amniga halka raashinka. waxa loo yaqaano social security, inuu qofka bini aadankii raashin ku filan uu haysto. amniga labaad waxa dhahdaa waa inuu qofku haysto biyo macaan oo fiican uu cabbi karo. amniga saddexaad waxa la dhahdaa waa inuu haysto amni siyaasi ah, inuu siyaasad ahaan ammaan qabo. amniga afaraad waxa dhahdaa waa inuu haysto amni social ah oo bulshada uu ka nabad galo. amniga afaraad ee ugu dambeeya waxa weeye waa amniga ah inuu ka nabad galo in la dilo amba la xidho si cadaalad darro ah. afartaa amniba Djibouti kama jiraan. marka amniga systemka Djibouti uu ka sheekeeya waxa weeye waa amniga uu sheegay nin mufakkira oo Palestiniya Edward Said la oran jiray. wuxuu yidhi waa amniga kooxda wax xakunta waana iyaku inay ammaan ka helaan dadka ay xooluhuga boobeen. marka kol hadday ka nabad galayaan dadka xooluhuga ay dhaceen waxay ka dhigan tahay waxay ku jiraan amni iyo security bay ku jiraan. waxay dhahdaan aqoonyahanku markay baarayaan amnigu waa 2 nooc: amni bulshadu ilaaliso iyo amni systemku ilaaliyo. waxaana muhiim ah amniga bulshadu ilaaliso. goorma bulshadu amniga ilaalisaa? markay confiance iyo kalsooni ku hayso systemka waddanka ka jiraayay inuu cadaalad ku shaqaynayo. haddaba ikhwaani fillah walaalayaal, maanta waxaa xidhan nin dhalinyaro ah oo ku xidhan dulmi. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina adulma dulumaatun yowma alqiyaama. dulmigu waa mugdiyo maalinta qiyaamaha. qofka u kacay inuu yahay fu'aad inay isku qolo yihiin waxba ma haya kaasi. qofka u cadhaysan ka xidhay fu'aad baan isku qolanahayna waxba ma haya kaasi. labaduba waa daalimiin. waxaan u baahannahay dad u kaca. fu'aad baan u kacnay maxaa yeelay fu'aad waa muwaadin reer Djiboutiya. fu'aad waa qof muslima oo reer Djiboutiya. fu'aad waa qof bini aadana oo reer Djiboutiya. fu'aad wuxuu u baahan yahay in la isgarab taago, in la isu garab taago hiil iyo hooba, in la isu garab taago moral iyo maaragtay etik iyo akhlaaq iyo materialba ayuu fu'aad u baahan yahay. deeqana saasay u baahan tahay, munana saasay u baahan tahay. waxaan aad ula yaabaa waxa weeye wasiirka bidisheega ee eriyey gabadha yar ee Muna waa wasiir wanaagsan baa lagu ogaa, akhlaaq la ayaa lagu ogaa, dhaqan wanaagsan la ayaa lagu ogaa. majliska markuu fadhiyo ka sheekeeya cadaalad baa lagu ogaa. laakiin qofku marka uu ku dhex milmo systemka uu is-ilooba. marka waxaan leenahay waxaan kugu ogeyn ku soo noqo oo ahaw qof caadi ah, lianna waxaad tahay qof caadi ahaa. waxaanad ahaan doontaa beri markaa ka tagtay xukunka qof caadi ah
oo bulshada ku dhex jira sidaas daraaddeed waxa weeye sakratul kursi kursigan maalayacniga ah ee qof bini aadana uu hayo uu kaa dulqaadayo kugu fadhiisinayo inayna ku ilowsiinin xaqaa'iqda iyo runta inayna ku ilowsiinin inantaa yar ee dhallinyarada ah ee muna la idhaahdo waxa ay gashay taariikhda waxayna ka gashay inay tiri waxaan ku waayey xuquuqdaydii iyo shaqadaydii inaan u dagaalamo xurriyaddayda arrintaa rag baa hore loogu yaqaanay mishaarka lagaga gooyo shirka conseil des ministres inta la fadhiistay la yidhi joornaal buu hebel qoray ha laga gooyo lacagta oon anigu ka mid ahaa amba sheekh cabdiraxmaan barkhad baa kelmad khatara jeediyo ha laga gooyo amba horeyba looga goyn jiray anna ka hortayo amba gadaal dabadaayaba laga gooyo laakiin gabadhan yari iyadoo da'daa yara ayay tiri laa marka waxay risaalad u dirtay amba meesaaj u dirtay wanaagsan oo qurux badan majoriteega silaansiyaga aamusan ee u aamusan waxaan la fahmi karayn oo marba kii la soo gaadho maanta waa sharaatoon beritona waa kuwo kale uun ay ooyayaan sidaas daraaddeed waxaan leenahay walaalayaal duruustii aan ballan qaadanay ee aadka u adkayd darsi baa inoo soo socda 2 cisho kadib magaciisa waxaa la idhahdaa waalida geelle ma dhammaato ismaaciil cumar geelle inuu waalan yahay uunan fayoobayn baa inay tusi doonaa waxaan ka soo bilaami doonaa 2003 ilaa iyo waxaan soo gaarsiin doonaa 2021 2020 maxaa dhacay sanad walbaba maxaa la sameeyey oonan la samayn maxaa meel la sheegay oonan la qaban maxaa la ballan qaaday oonan la hagaajin xabad xabad baan inigu sheegi doonaa way qoran tahay iyadaas baad la socon doontiin insha allahu tacaala waxaanad arki doontiin inuu yahay beentu mashruuc aynan ahayn uun waxa la iska sheegayo rag baa u yaqaana siyaasaddu waa beentu maaha siyaasadduna been maaha bal nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka yowmalqiyaamaha ilaahay soo eegayn u naxariisanayn waxaa ka mid ah melikun kadaab madax beenaale ah iyo waxaa ka mid ah nin faqiira oo isla weyn ah iyo odag gaboobay oo sinaysanaya ninku hadduu da' noqduu sinaysto wax ku kadeedaya ma jiro qofku hadduu yahay faqiir wax kibir u keenaya ma jiro qofku hadduu yahay nin mustakfiyo madaxana wuxuu been u sheegayay ma jiro siyaasaddu been maaha waa mikaavili fikraddiisii siyaasaddu waa wax kale siyaasaddu waa dhismo siyaasaddu waa dhaqan hagaajin siyaasaddu waa run sheegis siyaasaddu waa hab siyaasaddu waa tadbiir waa sidee arrin loo hagaajiyaa siyaasadda waan ka warrami doonaa insha allah horena waan uga warranay siyaasadda diintu say u aragto say mooraalku u arko siday u aragta maaragtay qawaaniintu say u arkaan reer galbeedku sida xataa dhaqankeennu u arkay siyaasadda ayaan inii sheegi doonaa siyaasaddu waxaan shalay bilownay maaha 100 sano ka hor baan siyaasad lahayn siyaasaddeennu waxay soo jiraysa 1000 sano laakiin sidee bay ahayd waan ka warrami doonaa insha allahu tacaala waxaan uu ina geella jabuuti ka samaynayo siyaasad maaha isbeddelkan etoobiya ka socda ee argagaxa badan leh wuxuu qaawin doonaa ceebayn doonaa ina geelle 100 goor baan ka hadalay afrika waddanno degan maaha istiqraar male laguma xidho maaragtay naaladaada sallad u laguma rido quraate biyihii waa istaraatiiji korontadii waa istaraatiiji khudraddii iyo xawaashkii waa istaraatiiji nolosheennii oo dhan wuxuu ku xidhay etoobiya hadday kala tagto iyo hadday burburto iyo hadday dhibaata ka dhacdaba waxaa dhacaya gilgil baa jabuuti ka dhacaya maxaa yeelay qof waalan ayaa dalka ka taliya qof aan fayoobayn ayaa dalka ka taliya qof aan indhihiisu furnayn baa ka taliya qofka inan yar ka argoosanaya munadhada ka taliya inan yaroo deeqadhada ka argoosanaya ayaa ka taliya waxaa ka taliya qofka ka argoosanaya fu'aad marka isqabteen nin ciidamada ku jira oo ka sarreeya oo rubamaa uga dhow isaga qaraabo ahaan u kala eexanaya oon garta gelayn oon dhegaysanin odayaal oon dhegaysanin culumo oon dhegaysanin cuqaal oon dhegaysanin mufakiriin oo dhegaysanaya uun qofka isaga wax u sheegaynaya wuxuu sheega uun qaadanaya dhegaysanaya iyaa dalkii maamula dalku hadduu ku dhaca gacan noocaasina halis buu galaa marka reer jabuuti waxaan u sheegaynaa waxaa inoo ballamaa duruus aad u adag oo isdabayaal ah darsiga ugu horreeya insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa darsi muhiima oo ku saabsan waalida ismaaciil cumar geelle maxaa ka mid ah iyaan halhal u soo qaadanaynaa waxaad ogaan doontiin dalka inuu maamulo qof aan fayoobayn oo u baahan in la iska qabto ilaahayna wuxuu yidhi qofku markuu halkaa gaadho waa in la qabto
qofka ugu horeeya inuu qabto ana waxa weeye qofka ugu dhow ninka waalan waxa u fayo tulkiiba hore loo yiri walaa tu'tu sufahaa amwaalakum marka in la qabtaayo waa muhiim haddii la qaban waayo waa la calaacali doonaa waxaa calaacali doona kuwa qaban waaye waxaana calaacali doona kuwa iska celin waaye waxaa calaacali doona kuwa runta u sheegi waaye waxay oran doonaan shalay inaan waxaan yeeri lahayn maanta ma yeeli karno arrintuna waa mar aad gaari weydid iyo mar aad garan weydid marka maanta waan gaari karnaa waana garannay laakiin haddaan qaban weyno waxay gaari doontaa in aan gaari weyno mar aan kii hore een garannay wixii aan qaban weynay sidaas daraaddeed waxaan leeyahay walaalayaal waxaan ka baxayaa hadalkayga kaga baxayaa fu'aad xurriyadiisa helo fu'aad dad caafimaadka helo fu'aad maxkamad cadaalada Djibouti kama jirtee ha helo fu'aad haddii maxkamad la geynayo Ethiopia ha lagu celiyo waa loo sheegayna Ahmed Abi khaladka uu galay Nobelkiisaba halis ku jira maxaa yeelay isaga ayaa u soo gacan galiyay dal aan naxariis lahayn oo dadka u naxariisan ilmaha yar u soo gacan galiyay marka halkaas waxaan ka salaameynaa shacbi weynaha reer Djibouti ee kacsan ee ka mudaharaadaya xaafadda biyaha laga gooyay beekaaga 13aad iyo beekaaga 12aad iyo balbalo oo dhan iyo maanta oo xaafadii afraad ay kacday oo xataa maaragtay dadkii aan naqaanay yaraantii ay kaceen walaalkii baa kamid ah oo isaguna kacay oo hadlaya oo leh walaalkii hala soo sii daayo waxa Djibouti laguma aqoon walaalka marka la qabtay isaga aad u tagaysay waxaad ku oranaysay warbadan maxaa ku gashay laakiin in la isgarab joogsado oo la isgarab taago waa arrimaha cusub ee taariikhdeena ku soo biiraya storyga waa in la akhriyo weeyaan isagu ma akhrinayo anagu soo waan akhrinaynaa baraaruga waan arkaynaa saxwada waan arkaynaa halka aan ku socno waan arkaynaa dad baa waraqad ii soo qorayo iga leh 2021 unbu ku laamiyay bal naga daa hadalka badan aba naga daayo oo kadibna uu iskaga tagayaabe waxa weeyaan mar walba maanta unbu ku laamiyay balna daayadaasi waa waxa dalka halka keentay weeyaan waad mahadsantihiin waxaan ku soo noqonnaa insha Allah darsigeena soo socda ee aan gali doono 2 cisho kadib oo u bixinay waalida iyo wareerka iyo safiihnimada ina geelayo sidii xal looga gaari lahaa waa mahadsantihiin assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.